maanta qisadan aan soo qaadanayno waa qisad cajiiba. ilaahay wuxuu inooga warramayaa, inooga qisoonayaa, inoo sheegayaa nin warkii. ninkaasi wuxuu ahaa nin wanaagsan ayuu ahaa, nin cibaado badan ayuu ahaa, nin wuxuu ahaa caalim culummadii reer banu israa'iil ka mida. wuxuu gaadhay darajada la yidhaahdo axbaaru banu israa'iil ayuu gaadhay, waa culummadooda waaweyn. ninkaa waxaa arday u ahaa 12,000 oo arday ayaa wax ka barata. waa nin caalim ah oo lagu yaqaano adduunka zaahid buu ku ahaa, qalbigiisa ma raacin. ninkaasi waxaa lagu yaqaanay alla ka cabsi badan, nin dhowrsi badan ayuu ahaa. intaa waxaa u raacsanaa nin wuxuu ahaa mustajaabu dacwa, ilaahay waxa uu weydiisto ilaahay uu ka aqbalayay. ninkaasi intaa waxa u raacsanaa sir gaarah ayuu yaqaanay. ilaahay waxa uu baray sirta magiciisa weyn ee gaarka ah, uu qofku ilaahay uu waafajiyo ee ku barya ilaahay uu ka aqbalo. ismullaahi alacdam ayuu yaqaanay, uu ku ducaysan jiray. duca alle ducada uu ku ducaysanayo ilaahay wuu aqbalaa, wax alle wuxuu ilaahay weydiisanayo ilaahay wuu siiyaa. intaasi weliba ilaahay wuxuu u raaciyey wanaag badan, khayr badan buu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa u doortay diintiis, dad badan buu ilaahay ka fadilay, wanaag badan ayuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. ninkani wuxuu noolaa zamankii nebi muuse calayhi salaatu wassalaam ayuu noolaa. nebi muuse ayaa baray kitaabka towraad. ninka magiciisa waxaa la yidhaahdaa balcaam binu baacuura ayaa la yidhaahdaa. ninkaasi waxa uu ku dhashay, uu ku noolaa dhulka ardushaam la yidhaahdo, dhulkaa barakaysnaa, dhulka ardul ambiyaa ayaa la yidhaahdaa, meesha baytulmaqdis ay ku taalo, filistiin iyo hareeraheyga ayuu ku noolaa. qoomka uu ka dhashay waxaa la oran jiray banu kancaan ayaa la yidhaahdaa. banu kancaan asalkoogu waxay ka soo jeedaan reer ciraaq ayay ahaayeen, meesha la yidhaahdo baabil ayay ka yimaadeen. way soo hijroodeen, dhulkan shaam ayay u soo hijroodeen. nebi muuse calayhi salaatu wassalaam oo qoomkiisii reer banu israa'iil wada ayaa tagay dhulka iyo shaam. kancaaniyiintu markay arkeen nebi muuse oo reer banu israa'iil wada waxay u maleeyeen in dhulka laga saarayo oo dhulkoogii hore lagu celinayo ciraaq. sida awgeed way cabsadeen, way argagaxeen, waxay is yidhaahdeen waan ili kala kaxaynayaa. waxay u ordeen ninkan aan ka hadlayno ayay u ordeen, balcaam ibnu baacuura ayay u ordeen. waxay ku yidhaahdeen nabadbaadi, waa kan muuse dhulkii shaam soo galay, waa kan reer banu israa'iil wata, wuxuu doonayaa inuu na saaro, inuu na musaafiriyo oo ciraaq nagu celiyo. sida awgeed maanta noo gurmo adigu, maxaa yeelay waan kala tegaynaa, waan kala baahaynaa, waan googo'aynaa, bilaa dowlad baan noqonaynaa, bilaa watan ayaan noqonaynaa. quwaddaydii baan lumi, awood yeelani mayno, qoomkaagii baan nahay, annagaa naga dhalatay niyahow. maanta waa maalinkan kuu dhigannay ee noo gurmo, nabadbaadi, waxnala qabo ayay yidhaahdeen. maanta ayaana laga saarin dhulka yagar, meeshan shaam waan ku kornay, waan ku barbaarnay, waan ku badannay, quwad baan ku yeelannay, ayaana laga saarin. maanta waa kan muuse ciidankiisii buu wataa. muuse waa nin xoog badan, ciidankiisuna waa ciidan fara badan, lays hortaagi kari maayo, la dagaalami kari mayno, sida awgeed noo gurmo ayay ku yidhaahdeen. maxaa nii qabtaa? waxaa tahay nin ducadiisa la aqbalo, ilaahay ducadiisaba aqbalo, ilaahay bari. habaar muuse iyo asxaabtiisa la socota ee reer banu israa'iila ayay ku yidhaahdeen. waxa uu ku yidhi weylakum, hooggiinna ba'ah, warbiyaadaheen ma nebigii ilaahay oy malaa'igtii la socoto oy dadkii mu'miniintii la socdaan ayaad doonaysaan inaan habaaro? miyaad waalateen? maxaynii dhinaaday? sidee tihiin? miyaynu ogeyn inaan muslim ahay? haddii sidaa aan yeelo oon habaaro, waxaad ogaataan adduunkaygii iyo aakhiradaydii waan waayey, waan silcay, dhibaata igu dhici, waan gaaloobay. ma nin nebigii ilaahay habaaray oo ducadiisii la aqbalay maxaa u hadhay bay ku yidhaahdeen ayuu ku yidhi. dhinac walbay kaga yimaadeen, way ka codsadeen, way ku celceliyeen, intaba wuu diiday, kamay quusan. xoolo badan baan ku siinaynaa bay yidhaahdeen, hanti badan baan ku siinaynaa, darajo ayaan ku siinaynaa, madax baan noo noqon bay yidhaahdeen, dumar badan ayaan ku siin, waad guursan. waxay ku yidhaahdeen waxaannu kaa dhigi mas-uulkayaga, adigaanna maamuli, hoggaanka adaannu kuu dhiiban. dhinacii adduunkaa lagaga yimid. ninkii wuxuu bilaabay inuu fikiro, inuu arrinta rogrogo, inuu eego. iimaankiisii baa daciifay, iimaankiisii ayaa daciifay. ma ilaahay ayuu ka tegi oo shaytaan buu raaci? ma iimaankiisan ayuu ka tegi oo gaalnimu ka dooran? ma aakhiro
ayuu iloobi oo adduunkan gaaban ayuu dooran. naftiisii baa daciiftay, iimaankiisii baa daciifay, maal ayuu doorto adduunkiisii diintiisii ku iibsaday, adduun ayuu aakhira ku beddeshay, gaalnimo ayuu ka doortay iimaankiisii. ayuhal axibba, ibtilaaha ugu daran, imtixaanka ugu daran waa iimaankaaga oo ilaahay u ku seejiyo. waxa ugu weyn, nicmada ugu weyni waa nicmatul iimaan, waa nicmatul islaam, waa nicmatul qur'aan. taa wax ka fiicani ma jiro. laakiin imtixaanka ugu daran, ibtilaaha ugu daran waa maalinka aad gaalnimada dooratid, islaamka aad ka tagtid, waa maalinkaad iimaan weydid, aad gaalnimo iyo shirki ku dhacday. maalinkaasaa ugu daran. allahuma thabbitna cala aliimaan, allahuma thabbitna cala alislaam. way fitneeyeen, diintiisii bay ka fidneeyeen. kadib wuxuu yidhi waan habaartamayaa, habaar baan doortay. uu dhaqaaqay dhinaca iyo boortii nebi muuse agtiisa ahayd ayuu koray. wuxuu doonayaa inuu habaaro nebi muuse iyo dadka mu'miniinta ee raacay. ilaahay carabkiisii buu beddelay. markuu yidhaahdo nebi muuse habaar, wuu duceeyaa. markuu yidhaahdo kancaaniyiinta u ducee, wuu habaaraa. arrintii baa isrogtay. waxay ku yidhaahdeen war maxaa ku helay? miyaad waalatay? inaadna habaaraysid miyaad arkayd? ood muuse iyo asxaabtiisiina u ducaynaysid. waxa uu yidhi wallaahi ma garanayo, carabkanna anigu ma hayo. ilaahay baan rogayaa. laa amliku hayra daalik, arrin aan ahayn anigu ma hayo. arrintanna iraadadeyda way ka baxsan tahay, doonisteeda way ka baxsan tahay. maxaan samaynaada yidhaahdeen haddaba? dhulkii baa la qaadan, waddankii baa la qadhi, wax walbaa la waayi, waanu kala tegi, waanu baabi'i. maxaa yeella noo fikirninyo? wuxuu yidhi balcaam binu baacuura oo hadlaya, lam yabqa ila almakru walxiila. wax hadhay male, anu khalaas diinkaygii waan waayey. laqad daacat mini alaakhira bihada asaniic. ficilkan aan sameeyey aakhiraan ku waayey, diintaydii waan waayey. arrin baa ii hadhay khalaas. arrintaasi waa maxay? inaan makri la nimaanno iyo xiilad, siyaasad inaan la nimaanno, inaan shitaarad la nimaanno, inaan dhinac kale ka nimaanno. waa dhinacee? dhinaca macaasida. dhinaca macaasida inaan dhexdooda aan macaasi iyo xumaan aan ku faafinno. xumaantu hadday ku faafto, zinadu dhexdooda ay ku faafto, macaasida ay ku dhacaan, ilaahay u nusrayni maayo. malaa'igtu way ka tegi, dhexdooda balaayo ayaa ku soo degi. li'annahu maa nazala balaa'un ilaa bidemb. bala ma soo degto ilaa dembi bay la soo degtaa. marka sida awgeed baladan iyo imtixaankan iyo waxan si ay ugu soo degto waa inaan dhexdooda macaasi aan ku faafinno. sida awgeed ilaahay u kaalmayni maayo. marka ilaahay u kaalmayni maayo, malaa'igtuna way ka tegi, wax u kaalmaynaya ma jiro. ninkii shalay wanaagga dadka amrayey, xumaanta ka reebayey, macsiba ku dhacay, gaalnimo ku dhacay, dhinaca kale uga baxay. isagiibaa dadka xumaan iyo shar iyo waxaan fiicnayn amraya. waxa uu yidhi dumarkiina qurxiya, dumarkiina kancaaniyiinta dumar waaweyn oo qurqurux badan ayaa lagu yaqaanay. dumarkaasi ha iska dhigaan sidii dad wax iibinaya. reer banu israa'iil ha dhex galaan, fiyaan xumaanta iyo zinada dhexdooda, ayayna diidin ragga hala qaad. dhexdoodu markay xumaantaasi ku faafto ayaa waxaa dhici in ilaahay u nusrayn waayo ayaa dhici, malaa'igtuna ay ka tagto. kadib nin baa u yimid, sidii bay yeeleen. nin baa nebi muuse u yimid calayhi salaam, naag qurux badan buu wataa. markaasaa waxa uu yidhi waxaad ii odhan doontaa muusow, tani xaaraan bay kaa tahay, laakiin kuma addeecaya buu yidhi. u kaxaystay, gurigiisu la tegey. ilaahay daacuun ayuu dadkii ku salliday. xanuunkan daacuunka ah ayuu ilaahay ku salliday. 70,000 oo qof ayaa dhintay. nin la yidhaahdo fanxaas ibnu ciisaar ayaa arrinkii maqlay. kadibna seeftiisii buu soo qaatay iyo warankii, labadii xumaanta samaynayey ayuu dilay oo nafta kaga qaaday. markaasaa waxa uu yidhi allaahumma haakada nafcalu biman yacsiik. ilaahow qofka ku aasiya sidaasaanu yeeli oo waanu dili. ilaahay daacuunkii buu ka qaaday. dadkii way ladnaadeen. 70,000 oo qof baa ku dhintay. inta kale ilaahay ka caafiyey. waxay ahayd fitnadii ugu horeysay ee reer banu israa'iil lagu halaagay. dumar ayay ahayd. sida awgeed nebigu waxa uu yidhi fattaqullah, ilaahay ka cabsada, wattaqu nisaa, dumarkana iska ilaaliya. fa inna fitnata bani israa'iil, fitnadii reer banu israa'iil lagu halaagay, kaanat fi nisaa, dumarka ayay ahayd. walaalayaal, qisada cajiibka ah ayuu ilaahay inooga warramayaa subxaanahu wa tacaala. ninkaa la imtixaanay, ninkaasi aakhiradiisii adduunku iibsaday, diintiisii adduunku iibsaday, ninkaa fidnoobay. ilaahay waxa uu leeyahay suuratul acraaf isaga oo kaga warramaya aayadda 157 watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu ashaytaanu fakaana min alghaawiin. ilaahay waxa uu leeyahay nebi allah watlu calayhim ku akhri warkii, kii warkiisii ku akhri. naba war
warka weyn baa la yidhaahdaa naba. ilaahay waxa uu leeyahay watlu calayhim, dadka ku akhri u sheeg nebi allow, naba alladii aataynaahu aayaatina, kaan aayaadkayagii siinay. aayaatina buu ilaahay yidhi, aayaadkayagii waan karaamaynay, waan wanaajinay, ducadaan ka aqbalaynay, ismullaahi alacdam maan siinay, cilmi badan baan barnay, taqi baan ka dhignay, qof saalixaan ka dhignay, qof cibaado badan ayaan ka dhignay, waxaan u doorannay diintayadii. fansalakha minhaa, uu ka dhex baxay wixii oo dhan, uu ka dhex baxay. fansalakha minhaa, uu ka baxay, uu ka tegey. faatbacahu shaytaan, shaydaan ma dabagalay marka qoraacay. fakaana min alghaawiin, kuwii lumay ayuu ka mid noqday, halaagsamay. ilaahay waxa le walow shi'naa, haddii aan doonno, la rafacnaahu biha, kor baan ugu qaadi lahayno, magac baan u yeeli lahayno, caalim weyn magaciisaan jirsiin lahay. walaakinahu akhlada ila alard, laakiin dhulku isku dhejiyey, dhulka ayuu doortay, quruxda adduunka ah ayuu doortay. wattabaca hawaah, hawadiisii buu raacay, waxay naftiisu ay doonaysay ayuu raacay. ilaahay mathal xun buu ku tilmaamaya, walciyaadu billaah. ilaahay waxau leeyahy famathaluhu kamathali lkalb, kaasi tusaalihiisu waa ay oo kale. kamathali lkalb in taxmil calayhi yalhath, ayga haddaad eridid ood eryatid carabkuu laalaadin, aw tatrukhu ama aad iska daysid yalhath, carabkuu laalaadin. ama wuxuu sheeg ama wuxuu sheegin way siman yihiin, sida aygaas oo kale. ama eryo ama ha eryen, ama ha gaajoodo ama ha daragsanaado, carabka ayuu lulaya mar wada. dalika mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaatina, kuwa aayadahayaga qoomka beeniyey saas la dhigmaan buu ilaahay yidhi. faqasusi lqasas, wararka uga waran qisaskaas, lacallahum waxay mudan yihiin yatafakkaruuna inay fikiraan. aayaadkaasi waxay laleeyihiin fikira. qofkaasi diintiisii buu iibiyey, caqiidadiisii buu iibiyey, caqligiisii buu iibiyey, damiirkiisii buu iibiyey, wuxuu iibiyey mustaqbalkiisii wanaagsan, aakhiro ayuu iibiyey. diintiisii adduun buu ku doortay, maalimo yar, adduun yar oo faaniya oo tegaya ayuu ku doortay. أحبتي في الله مثل حن ويان وتصالح نينكا شيخ عالمك إنو دينتي سي إيبيو إنو إلهي كبان شيغو إنو الدون ير دورتو أو قرح ديدي إيو للدلال كيغا إنو دورتو إنو نينكي داعيغا أها شالي تولي مانتانا داعي للضلال حمان ضدك أويارو وأرن آدي آدو فالحن إلهي مروحة كتل مامي كالكل أي بكتل مامي مركا مثل الذين حملوا التوراة حمار بو إلهي مركانا كتل مامي دك مركا يسعايا وحان كلبيغا أيغا يا وحان دميركا أي يستلهذا والشيء حن الاسكو عايو ولا ليال ابتلاها أقوين وإيمانك أقول لك ابتليه امتحانك أقوين وامتحانك الدين تادرقا قليل سيدا أوقات قفك وإنو مبدئي سهيستو وإنو إلهي إمبضا أبريو إنو إلهي مبدأ إيا الدين تكسوغو وكدنتو فتنة إن لقد ديكتونادو مرولبا وفتنة النساء دمرك إن لقد ديكتونادو شركة دمرك اللي قد ديكتونادو وإن ما أرتاي دمرك اللوحي جابو دمرك وحبي فتنين كران نعم dumarku way wanaagsan yihiin dumarka khayr badan bi Ilaahay ku sugay dumarku waa kuwa ragga dhalay waa kuwa anbiyaada dhalay waa kuwa hooyadeen iyo walaasheen iyo dumarku khayr badan ayaa ku jira laakiin haddii la doono in ragga lagu fidneeyo si fudud ayaa loogu fidnaan karaa sida awgeed waa in dumarka loo xijaabo waa in diinta la baro ahibati fillah waxa loo baahan yahay inaan diinteena ku faanno inaan iska ilaalino inaan Ilaahay macaasidiisa aan ku dhacno haddaan ku dhacnana waa inaan toobad keenno mar walbana waa inaan iimaanka iyo diinteena iyo caqiidadeena aan ku dadaalno taasa guula taasa khayra taasa wanaaga taas weeyaan tayna badbaadinaysa adduunyo iyo aakhiro xalaqa kale ayaa jirta oo inagu soo socota oo qisaska aan kaga waramayno qisasun fil qur'aanil kariim la socod wanaagsan wajazaakumullahu khayran wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in